maayarka caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland Cabdikariin Axmed Mooge oo ay wehelinayaan xubno ka mid ah golaha deegaanka caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa soo gaadhay waddanka Jabuuti waxaana garoonka diyaaradaha ee caasimadda Jabuuti ku soo dhaweeyay duqa magaalo madaxda waddanka Jabuuti Marwo Faadumo Cawaale Cismaan iyo safiirka Somaliland u fadhiya waddanka Jabuuti Ambassador Cabdifataax Siciid Axmed. Wafdiga uu hogaaminayo maayarka caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa dalka Jabuuti ku sugnaan doona muddo 3 maalmood. Wafdiga uu hogaaminayo maayarka caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay xarunta dowladda hoose ee dalka Jabuuti waxaana shir laba geesood ah uga furmay labada maayar ee caasimadda Somaliland iyo caasimadda Jabuuti iyadoo oo la iskula soo qaaday sidii loo mataaneyn lahaa labada caasimadood ee Somaliland iyo Jabuuti. Hadal ay ka soo jeediyeen labada maayar ee caasimadda Somaliland iyo caasimadda Jabuuti ayaa waxa ugu horreyntii halkaasi ku soo dhaweysay gabadha maayarka ka ah caasimadda Jabuuti maayarka caasimadda Somaliland Cabdikariin Axmed Mooge. maayarka magaalada Hargeysa mudane Cabdikariin Axmed Mooge iyo wafdiga ballaaran uu hogaaminayo waxaan ku leeyahay mudane maayar ku soo dhawow caasimadda Jabuuti anigoo ku hadlaya magaca xildhibaanada maamul hoosaadka ee 3 degmooyin iyo shaqaalaha xafiiskan meeriga Jabuuti iyo 3 degmooyin iyo guddi xaafadeedka ka jira caasimadda Jabuuti waxaan ku leeyahay qalbi furan ku soo dhawow insha Allah taala waxaan rajaynayaa 3 maalmood ee nala joogaysina inaan insha Allah wax badan aanu kala faa'iideysano hadduu Ilaahayna gaarsiiyo. farxadan la soo koobi karayn ay noo tahay inaanu booqasho ku nimaadno oo casuumad ka helno maayarada Jabuuti. waxaanu sidoo kale aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa madaxda kale xildhibaanada golaha deegaanka Jabuuti maayaradooda nala soo dhaweeyay. waxaanu runtii ognahay oo qarsanahay in dadka reer Jabuuti iyo dadka reer Somaliland ay yihiin dad walaalo ah. labadooda magaalo ee Jabuuti iyo Hargeysana waa laba magaalo oo walaalo ah. aniga oo ku hadlaya afka golaha deegaankana magaalo ka mudan Hargeysa inay la walaalowdo wax ka barato oo Jabuuti aan ahayn ma jirto. wasiirka arrimaha gudaha Jabuuti ayaa salaan sharafeed ku qaabilay wafdiga uu hogaaminayo maayarka caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland ee Hargeysa waxaana ku wehelinayay safiirka Somaliland u jooga waddanka Jabuuti duqa caasimadda Jabuuti Marwo Faadumo Cawaale Cismaan. Maxamed Jaamac Cawaale warbaahinta qaranka Somaliland Jabuuti.